maanta ay taariikhdu tahay September 17keedii waxaan magaalada Toronto ka furaynaa xafiis hawlgeli lahaa xisbiga kulmiye waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha North America Mustafa Cabdi Cartan Mustafa waxaan ka codsanaynaa inaad xafiiska noo furto waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa laanta Toronto ee dalka Canada oo maanta xafiiskii campaignka ka furtay magaaladan Toronto xaafadda Scarborough aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa guddigiina culus ee qiimaha iyo qaayaha leh ee muddada yar ku tallaabsatay hawlkarnimada iyo dhaqdhaqaaqa fiican ee gaadheen waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan ee ugu wadaan hirgelinta dhaqaalaha iyo kobcinta xisbiga kulmiyaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waana dhowahay waana mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوميها نورد أمريكا قدوميها دقمة تورنتو كسو قيب قلياشة دمانتين ومهاتسنتين وحنا هالكن آد وقو فرح سنة هاي عاوة فرحان لسوكو بكرين إني هالكن يسوقو يمادين gudiyadii ha ahaato ee Toronto nustambeedkii gudiyadii shaqaynayay oo halkan isugu yima xafiiskan cusub iyagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan jecelahay hadalkayga inaan ku soo ururiyo kow waxaan hambalyeynayaa dhammaan ummadda reer Somaliland marxaladihii ay soo martay iyo guulaha ay gaadhay iyadoo 27 jirsatay waxaan bogaadinayaa xisbiga kulmiye waxaan ku bogaadinayaa harumarkii uu gaadhay ee uu ku suntan yahay ee uu ka dhabeeyay muddadii uu xilka hayay wixii uu harumar soo qabtay iyo maqaamkii uu dalka gaadhsiiyey waxaan kaloo ku bogaadinayaa xisbiga kulmiye barnaamijku u soo bandhigay halkan aynu imika buugiisa ku hayno ee ummadda reer Somaliland loo soo bandhigay ee uu doonayo inuu ku hantiyo 5 sannadood ee dambe ee soo socda barnaamijkaasoo ah mid ay ka buuxdo mid la qodax tiray oo ay ka buuxaan himiladii ay Somaliland higsanaysay waa dhab in marxalad kala guura lagu jiro marxalad cid waliba doonayo inuu taladii dalka hantiyo laakiin ummadda reer Somaliland way og tahay oo way garanaysaa oo way kala taqaanaa waxa weeyaan kulmiye cidda ay ku aaminayaan ummadda reer Somaliland masiirkooda ay ku aaminayaan hambaliyo kulmiye hambaliyo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa halkan oo laga furay xafiiskii ugu horeeyay ee kulmiye ee waqooyiga America khaasatan magaalada Toronto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inta kadib socdaal gaaban oo aan ku tagay dalkii Somaliland waxaan salaan qaaliyeedii ka sidaa hoggaanka xusbiga kulmiye musharaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo saraakiisha sare ee xusbiga aad iyo aad ayay idin soo salaamayaan waxaana igu soo fareen salaan qaaliya naga gaarsi haddii aan in yar soo koobo socdaalkaygii waxaan la kulmay dhulkii oo barwaaqo ah roobkii oo aad u da'ay dadkii oo ilaahay naxariistiisii ku rogay abaartiina laga baxay taasina waxay ii noqotay guul iyo farxad aan dalkii ku arkay waxa kale oo meesha jira waxa weeye waxaan ka qayb galay ololihii ama socdaalkii
xusbiga kulmiye uu ku tegey gobollada galbeedka gaar ahaan magaalada gobolka awdal iyo gobolka gabiley waan la soconnaa wixii ka dhacay iyo mawjadihii dadka ahaa ee soo dhoweeyey taasina waxaa keenay horumarka cadaaladda iyo sinaanta uu dalku gaadhay waxay dadku leeyihiin hoggaankii madaxweynaha siilaayo siduu ku hoggaaminayay waxa aanu mar labaad doonaynaa inuu xusbiga kulmiye oo uu hoggaaminayo mujaahid muuse biixi inuu mar labaad ku guulaysto madaxnimada dalka soo socota sababaha ugu weyn ee ay dadku sidaa u leeyihiin waxa weeyaan cidda og wixii dhacay iyo qorshihii 2010kii buuggii la qoray oo dib loo rifaageliya cidda xogaalka u ah ee halkii ka amba qaadi karna waa hoggaanka xusbiga kulmiye oo uu hoggaaminayo muuse biixi cabdi midka kale wixii sarmaseeg ee siyaasaddu ama aafooyinka ay la yimaadeen sida abaaraha shubanka cidda og ee halkii kasii ambaqaadi karta ka hortegeega waxa weeyaan waa xusbiga kulmiye guushii uu madaxweynaha iyo maamulka u keenay inuu muuse halkii kasii ambaqaado sidaa iyo nabadgelyo guul baan idiin filayaa inaad halkaa kasii wadaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أنا إدريس محمد طلاب عدة أهنا قدوميها South Western Ontario حسبك كلمية لانتي سو مركز ستة هاي مقالة كيتشنر قبل كونتاريو ودنك كندا وحنا دقو فرح سنة هاي كسوق قبل كنا كسوق قبلي برانشجن مهم كأه ما أنت لقى فري مقالة تورنتو ودنك كندا وحنو مهدنا قيا دمان سوق مقابياشي برنامجك haddii uu noqdo gudoomiyaha North America haddii uu noqdo gudoomiyaha Toronto iyo dhammaan gudoomiyaasha kale iyo xubnaha volunteerka ah anigoo matalaya magaalada Kitchener iyo nawaaxigeeda waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan ummadda reer Somaliland meel kasta oo adduunka joogtaba iyo dhammaan shacabka reer Somaliland ee ku dhaqan magaalada Kitchener iyo nawaaxigeeda oo markaas matalayo waad mahadsantiin dhammaantiin waxaynu maanta ku talaabsanay arrin muhiim ah taasoo ah inaynu furno xafiisyo ay dadku iskugu yimaadaan waana arrin muhiim ah oo aynu ku dayan doono anigoo markaa ku hadlaya Kitchener waxay noo tahay tani mid aan ku dayan doono aananu ka furi doonana xafiisyo noocan oo kale ah magaalooyinka Kitchener iyo magaalooyinka kaleba marka hore waxaan halkan ku soo dhaweynayaa dhammaan xafiiskan cusub laanta Toronto maanta aynu ka furannay waa kii aynu xubnaha xisbiga kulmiye Toronto iyo hareeraheegu hawlaha xisbiga ay uga fulin lahaayeen abidna lama arag xafiiskan oo kale lagama furin Toronto waa kii ugu horeeyay noocan oo kale ah marka dadweynaha iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye Toronto iyo nawaaxigeeda jooga waxaanu maanta ugu bishaareynaa oo leenahay xafiiskii aad sugayseen baan xisbiga kulmiye maamulkiisa new friend waana new friend yahay shaqadiisuna si toos ah wixii laga bilaabo maanta ayay u socotaa inaad nagala soo xiriidaan addresskiisuna uu yahay 1450 O'Connor East York Toronto marka sidaas ayaan aad iyo aad maanta ugu bogaadinayaa aan inagu hambalyeynaa cid walba aanan leeyahay kan waa kan guushi ku gaar lahayn ku soo dhawaada sidaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو مقعي اللي رادو أحمد دقويني وحنا هاي حبين كمي ده قد تورنتو كل مية إسلام كان حق هيها قار كاهي حق نقالها إلا أنت تورنتو هذا الكلام أنتي سي بندي إنه حكي وحش نوشة قدوميها نورث أمريكا يعني قلتي هراء هذا شيء كان كنا قلنا مايو إن هدي أنقار نقضه نقول نقضه إن
aniga qaybtayda ii gaarka ah oo ah xagga dhaqaale urunta waxaan warbixin yaroo kooban idinka siinayaa inaan muddo 3 wiiga iminka aan wadnay dhaqaalihii aanu campaign ku geli lahayn ee aanu tartanka kaga qayb geli lahayn 3 wiig baan wadnay ilaa hal wiigna uu noo hadhay iminka insha Allah wixii information ah waxaanu ka soo gudbin doonaa marka aanu soo dhamayno inaan xog sugan helno waxaa noo farxada maanta in munaasabadan aan isugu nimi xafiiskan naloo furay oo runtii noo sahli doona inaan campaignka ka qayb galno aniga yoolkaygu waxa weeyaan wixii dhaqaalaha ee aan ku shaqeyn lahayn ku halgelin wadankii aan kaga tartan geli lahayn inaan hubsano inay shacbigeegu ama kulmiye taageerayaasheeda aanu ka helo sababtoo ah dhaqaalaha waxaanu kala simannahay xisbiyada kale wixii taageera ee dawladdu ay siiso xisbiyada marka waxaanu had iyo jeer ku xidhannahay oo aan u mahadnaqayaa intii na soo gaarsiisay wixii dhaqaale ah inta kalena baaq waxaan u jeedinayaa inay soo gudbiyaan wixii ay noo ballan qaadeen ayna ka qayb galaan taageerada xisbiga xagga dhaqaalaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي خالد عبد الرحمن أهنا قدوميها دنيارة لانت تورنتو marka hore waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudida iyo gudoomiyaha noo furay xafladan ama xafiiskan quruxda badan leh xarunta magaalada Toronto waxaan aad ugu faraxsanahay xafiiskan quruxda badan leh sida wanaagsan loo qurxiyay furitaanka aan ka soo qayb galay aad baad ugu mahadsantihiin waxaan guud ahaan ka hadlayaa dhalinyarada reer Somaliland waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada reer Somaliland guud ahaan inuu xisbigan kulmiye yahay xisbiga kaliya aynu ka arki karno wax qabad dhalinyaranimo wasiirada ugu daada yar ama wasiirada maanta dalka haya waxay u badan yihiin wasiiro dhalinyara marka waxa weeyaan waxaan rajaynayaa hadduu qabsado musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye inay dhalinyaradu wax badan oo Chinese ka heli doonto waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha North America ee noo furay xalfada iyo gudoomiyaha Toronto waan mahadsantihiin maanta laga bilaabay xafiisku waa inoo furan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو شعيب عبد الله حسين أهنا قدومي كحجينك حزب كلمية دجمدن تورنتو أما لانتا تورنتو وحنا آدي أدوكم هالنقيا دمان أنت كسوق يبقى شيء تاجرياشا حزب كلمية وضياشا مستنبتك قدوميها نورد أمريكا قدوميها تورنتو حوجيها جود كندا وضياشا مستنبتك دمانتين وحنلاقي هاي ويلكم waxaan doonayaa inaan u sheego dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee Toronto iyo nawaaxigeeda degan buugii barnaamijkii xisbiga siyaasadeedka ee lagu daafuray Hotel Mansour waxaanu idin ku haynaa xafiiska cusub ee Toronto adreeskiisu yahay 1450 O'Connor telefoonkiisu waxa weeyaan 416-903-1120 telefoonka kale aad kala soo xiriirayso waxa weeyaan 647-999 2366 please waxaan jecelnahay cid kastoo doonaysa ama daneynaysa inay kala soo xidhiidho xafiiska kulmiye group ee magaalada Toronto salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan marti sharafta meeshan isugu timi madaxda North America madaxda Canada ee halkan joogta madaxda laamaha Kitchener iyo Toronto aad iyo aad baan horta marka ugu horeysa idin salaamaya idinku salaamaya salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta ka bacdi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa furitaanka xafiiskan aynu maanta ka furnay magaalada Toronto ay ka fureen gudida magaalada Toronto aad iyo aad baan gudoomiye adiga gudoomiye xigeenka iyo madaxda kaleba aan idinku mahadnaqayaa waxaan rajeynayaa inuu noqdo xafiis u adeega ummadda Somaliland iyo gaar ahaanba xisbiga kulmiyada waxaan kaloo doonayaa inaan idin sheego inuu bilaabmay qaarankii ama ololihii dhaqaalaha loogu ururinayay xisbiga kulmiye North America oo soo gabagaboobayo dhammaan laamaha iyo North America USA iyo Canada toddobaadka soo socda haddii Ilaahay yiraahdo waxaanu kaloo aad iyo aad caawa u taageeraynaa barnaamijkii siyaasadeed ee soo baxay ee xisbigu soo saaray ee ahaa sidii loo hirgelin lahaa ama looga hawlgeli lahaa 5 sano ee soo socota haddii Ilaahay yiraahdo waxaan idin rajeynayaa dhammaantiinba guul iyo gobonimo soo dhig calan xaq hore soo dhig
يمكن سومال لاندا أنا بين الصحيح buuggayga ma muuqdaa dawladka sharaf alle iga hagaaji ku noolaa bas haddaba sawirka كعنونا كما أركب كما أركب بيبيلياش ما ركبت شيء ولا لكن دي كيك هسه ولا توي صار توي والله ما باهدين نقطع حبايب isaga hayes isaga u soo cabdikariim baa meelkooda صدق طعمك خاص ragga in la cuno weeye